روح لقى أرجحيه لقى نحسيه معه روح وحو كان حلا تصي معه ولا دجيه قلبي قال له قبوشي وحو الدنيا وناقب الله كاني سي ترتيب الله لها اللي ترتيب الله سوسيبي يضو فرح سنبا للتقول الله قاتلي والروح مؤمن وهايو بيسا أود وجدا بيسنا واستعمال الساء بيس حب الوصاري اللي هو يعرضي وحاجة هو عرض من العرض مركو ويصال وصو صاربا ملك الموت باقي عنك كشو قاضية ملايتي كل اللي سعوتي أيام مركي باقي عنتي سقالا وريبس البرقس بدهوت بيكا قاضية markaasaa waxay dhex gelinayaan maradii qallafsanaydii wadeen bay dhex gelinayaan marada lafteedaaba jiibka cunaysa markaasaa waxaa ka soo baxaya ur aad u qarmuun wax dhulka korkiisa yaalla oo bakhti oo uraya kan ugu qarmuun urkiisoo kala ka soo baxay markaasaa kor lala aadaya u fiirsa marka kii hore sida loo soo dhoweeyey sida loogu dabciyey sida loogu naxariistay sida loogu bishaareeyey
sida loogu turay iyo kan sida loola wax la dhaafayaa ma jiro, qof kastaa waa dhimana. kullu shayin haalikun ilaa wajhah, shay kastaa waa halaagsamaa ilaa wejiga ilaah maahane. kullu man calayha faan wayabqaa wajhu rabbika duljalaali waalikraam. shay kastaa waa baaba'ayaan, waxaa haraya wejiga ilaah oo karaamada iyo sharafta leh subxaanahu wa tacaala. bacdamaa qof kastaa uu dhimanayo, qof walbow dadaal, diyaar garoow, diinka ilaah ku dadaal. geerida ha kuu timaado adigoo taaco ilaah ku jira, yay kuu imaanin adigoo macaasi alle ku jira. islaan ayaa sujuudsan dhimatay, waa la toosin waayey, sujuuddeedii ayay ku sugnayd. waa la dhaqay ayadoo sujuudsan, waa la karsanay ayadoo sujuudsan, janaasaa lagu dugtay ayadoo sujuudsan, qabrigaa la geliyey ayadoo sujuudsan, waa la duugay ayadoo sujuudsan. sujuud ayaa lagu soo bixin doonaa yowma alqiyaama in shaa allahu tacaala. waayo nebigu wuxu uhi yabcaثu allah kullu axadin calaa maa maata calayh. qof walbaa wixii uu ku kor dhintaa lagu soo bixiyaa qiyaamaha. kii asagoo gurbaan tumayo ku dhintaa saasaa lagu soo bixinaa. kii asagoo ku dhintaa xumaan iyo fiski asagoo ku jira saasaa lagu soo bixinaa. qof walba wuxuu ku dhinto ayaa lagu soo bixiyaa. xadiisku wuxuu yidhi qof walbaa wuxuu ku barbaaro ayuu ku duqoobaa, qof walbaa wuxuu ku duqoobuu ku dhintaa, qof walbaa wuxuu ku dhintaa lagu soo bixiyaa qiyaamaha yoonkeeda. sidaa darteed qofka muslimka ahow ku dadaal khaatimadaada inuu ilaahay wanaajiyo, wanaagga iyo diinka ku soco. ilaahay ayaa qiimo fara badan ku siinaayo. war adduunka maanta ma harin ilaa subaaba ka subaabata alinaa, reereeb oo weelka reereebkiisa oo kale oo qofka cunaaya uu rabo inuu isku keensado ee hal mar uu afka gashto. cali bn abi taalib wuxuu yidhi adduuni aakhiraba ilmo ayay leeyihiin ee fakunuu abnaa'a alaakhira walaa takunuu abnaa'a addunyaa. war ilmihii aakhira noqda oo ha noqonina ilmihii adduunka. dhammaanteen maanta adduunkii ayaan raacnay, geeridii waa hilmaannay, ilaahay diinkiisii waa hilmaannay subxaanahu wa tacaala. ajasheennana meel loo soo joogaa ma jiro. maanta qof baa dhintay, beri qof kale hadduu dhinto maalinta kale adaa dhimanaayo. yaqiin buu ilaahay ku magacaabay subxaanahu wa tacaala inay imaanaysaa yaqiin ah, qof kastaa inay soo maraysaa yaqiin ah. allaan ka baryaynaa inuu sakaraadka noo khafiifiyo. ilaahay ayaan ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala inuuna garansiiyo, na xasuusiyo inaan adduunkan ka tegayno. wallaahi maanta kulligeen adduunkii ayaan raacnay, adduunkii waa nagu cayaaray. ilaahay nebigiisa sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi qof allaala qofkii hamigiisa ugu weyn adduunka uu noqdo, ilaahay fakhri ayuu labada indhood inta u dhaxaysa looga dhigaa, qabri ee qalbigiisa lagu dhigaa. ma hela adduunka ilaa wixii ilaah uu ugu talagalo maahane subxaanahu wa tacaala. qofkii hamigiisa ugu weyn aakhiro uu noqdo, ilaahay wanaag ayuu siinaa. adduunkana asagoo raadinayo u imaanaa buu dhahay nebiga salawaatuullaahi wasalaamun calayh. laakiin annaga maanta adduunkii waanu orodnay. qof kastoo hadlaayo waxaad arkaysaa adduunaan burinaayey, adduuna saan igu noqda inuu markaa
كسراد ويان وربي لا أدري ماذا يفعل بي ربي جاي وحي يقول سمين دوننا كما ورقبي بيقول أنا وإيماني عمل صالح maalmaha ka mid ayaa nabigeenu calayhi salaatu wasalaam magaalada madiinu soo maray wuxuu arkay markaa saxaabada qaar ka mid aqal yar oo cariisha markaa ay dhisayeen markaa buu nabigu yidhi maxaad haysaan waxay yidhahdeen aqalkan baa soo yar duusayo waan la tiirinaynaayo waan la dhidhisaynaa markaa buu nabigu yidhi wallaahi anu ma arko ilaa saacaddaa ka degdeg badan buu ka yidhi saacadda qiyaamada ka degdeg badan buu ka yidhi intaad aqalkaa dhisaysaa malagii suurta afuufayey waa israafiil calayhi salaam ayaa buuqii qaatay buu rasuulku yidhi foonintii buu qaatay lugihiina uu kala fidiyey markaasuu sidaa u haystaa idan ayuu sugayaa idan saxaabada rasuulku hadalkaa markay maqleen waxayba moodeen inay saacaddu berri ay dhacayso oo hadda suurta lagu dhifanaayo markaasay yidhaahdeen yaa rasuulallah maxaan idhahnaa noo sheeg markaa buu nebigu yidhi waxaad tidhaahdaan xasbuna allahu wa nicma alwakiil dhaha wallaahi markuu aakhirada kala hadlaayo markuu jannada kala hadlaayo markuu naarta kala hadlaayo markuu qiyaamada kala hadlaayo dareenkoogu wuxuu ahaa si waxay jannadii naartii hadda ay arkayaan isha ku hayaan فؤاد شغوف إلى ربه
أحب رضاه أحب لقاه يا marka koowaad ee xabaasha lagu dhigo ayaa identity-gaaga lagu weydiinaya meelahan askartu markaad ku joojiyaan iyo dhulkan kantaroolada iyo markaad soo gasho maxaa lagu weydiiyaa aqoonsi keen saxiga maaha ID keen ID-gu wuxuu caddeeyaa maxay inaad meesha u dhalatay ama inaad fiisa u haysato ama sharci u haysato ama deganaanshiilada ama baasaboor ama nimaad tahay baa la sheega war marka nafta lagaa soo qabtaa laba malag ku imanaya ID-gaaga dhiiba baa lagu leeyahay ID-gu markaa ma aha magacaaga iyo reerkiinna iyo qabiilkiinna iyo maxaad xoola haysatay reer iyo carruur maxaad ka timi adduunkii maxaad xoola kaga timiyo reer maad ahay ID-gu kaa maaha ID-gu waa 3 su'aalood oo qura waa man rabbuk wamaa diinuk waman nabiyuk that's your ID wax kaloo cidi ku weydiinaysaa ma jirto wariya kuu rabbiya diintaad haysatay waa tuma ninkii laydin soo saaray maxaad ka rumaysnayd الرجل الذي بعث الله فيكم maxaad ka rumaysnayd hadday dhab ahayd markaad dunida joogtay inaad ku dhaqmayso cabsanaysay ilaahay baa ballan qaaday inuu markaa ku haleeshiinayo waa mowqif argagax badan leh maaha su-aal si caadiya lagu weydiinayo laba malag oo aragtidooda laga cabsi qabo qofka bini aadamka markuu cabsado soo moogid wax walba inuu ilaabo haddii marka lagu hanjabo inta lagu gilgilo lagu yidhaha magaca inaad horeba u garan weydaa bay u badantay inaad sasto laba malag oo ilaahay noocooda ka warramay oo nooc gaara ah oo sabarada naarasito ku soo gilgilaya oo ku fadhiisinaya oo baqaha dhulku kula go'ayo aanad haleelaynin inaad waxbaba xasuusato ayaana su-aasha ku weydiinaya ilaahayna wuxuu leeyahay يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت قرمه في الحياة الدنيا وفي الآخرة هذا هل كان إيمانك دستي أيديغا مركا والله صباحي سوا كبادا هدي هل كان مركا جوجتي أنا عبسين جرين هل كان مركا جوجتي أنا إلهي الرجين جرين هل كان مركا جوجتي أنا بدبادة وحكانين أيدي بداول بمتزني ama mid googo'ayo aan la akhriyi karin buu ahaa dan markay cabsidu timaadana ma sheegi karaysid